عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام يا ولا الله قاليجا ميل كستادون كدعلدي سكتشوكتين سو دواada ولاش فرحية علي محمد channel كان نقد دعوانا سنة وأم عمار channel آد بان إذنكم مهد علينيا ولا الله قاليجا سيدا وناكسن أدنى الصعوتان وإذن كجم مهد علينيا مرولبا وحكمتين فاميل كيجا أصحاب تيدا سو دواada دمانتين فضلا هدان وعصبتاي channel كسبسكرايب ده haddii aad hore noola joogtayna waa ku mahadsantahay la joogaaga nala soco hanaga tagin saaxiib dhow noo ahaaw aad baa u mahadsantihiin maanta maxaa idiin wadaahe asxaabtayda maanta waxaan rabaa inaan hablaha la sheergareeyo waxyar halkan waxaa noogu jiro kabsar aan soo dhaqay oo gadaashii ama dabadiina aan kasoo jaray sidoo kale halkan waxaa noogu jira toon aan soo fiiqay ama galkii kore aan kasoo bixiyay maanta waxaan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo walaalahayga qaaliga saan marar hore idiin sheegay in maalmo badan anoo wax sameynaya markaan kabsarta wax ku daraayo waxaa idin dhahaa kabsarta iyo toonta aniga waa isugu kay shiidan tahay waa isku shiitaa marka iyadoo isku samaysan bay ii diyaarsan tahay mar walba iyadoo diyaar anoo wax ku daraya ayaad dhowr jeer aragteen intii fiidiyoyadeedii hore la socotay marka waxaan rabaa bal sida farxiya ay kabsarta iyo toonta u diyaarsato maanta inaan idinkaga faa'iideeyo waa laga yaabaa inaad idinkuna ka faa'iideysataan marka walaalahayga qaaliga markii aada suuqa ag deganayn tusaale ahaan suuqa weyn agtiisa aadan deganayn ama inta badan qurbihii waa la iska ciidan xun yahay qurbihii la joogo inta badan waxaa dhacda in adeegaaga hal mar soo gadatid qudaartaada waxaaga oo dhan hal mar aad soo adeegatid fridge-kaaga hal mar soo camiratid soo buuxsatid wixii banaan ooli kara like baradhada iyo basashiyo kalena aad soo diyaarsatid banaanka yacni wixii aan fridge-ka galayn oo qalalan oo aan qurmayna aad banaankaaga dhigatid hal mar aad wiigii soo adeegatid halkaa mar adeeg kugu filan wiigaas aad hal mar soo adeegatid hal marna aad suuqi aa u baxadid Soomaaliya oo kale waxaan xasuustaa subax walba aroortiibaa mataqaanaa adeega la iska soo gadan jiray sababtuna waxay ahayd inta badan Soomaaliya waxaa jiray suuqyaal yar ah oo ama dukaamo yar ah oo qofku mar walba agtiisa uu ka helay adeegii markaa ka go'a subaxii baaba iska soo qabsanaysaaba inkastoo dhan markii laga fiiriyana ay wareer tahay subax walba inaad adeeg u kala hadid ay mashruuc tahay ay ka fiican tahay hal mar inaad soo adeegatid xitaa dhaqaale ahaan in aad dhaqaalahaaga balangaraysid waxaa ku fiican inaad wiigii hal mar soo adeegatid sababtu waxa weeyaan inaad tafaariikh mar walba shay aad soo qabatid waxaa kaaga fiican kana manaafacaad fiican xagii dhaqaalihiina kaaga qurux badan inaad wiigii hal mar aad soo adeegatid tusaale ahaan hadda aniga waxaan soo adeegtay adeegii iigu dambeeyay waxaan soo adeegtay bisha hadda dhamaatay Agost 27 baan soo adeegay maanta oo aan fiidiyogan duubayo waa bishii September waxa kan yiraahdo bisha Septemberna waa 10 maanta saan filayo maanta ayaan adeeg labaad soo adeegay just kabsartan aad arkaysaan haddan suuqa ka imid oo adeegii aan soo iibiyay marka waa intee bari waa 13 bari ayaa adeegii hore ii yaalay 13 bari hal shay banaanka kama doonanin mana ka soo gadin ilaa moos waxaan ka ahayn moos waa de moos kuma joogaya asbuuc dhan mooska waa soo iibsadaa meelo ii dhadhow baan ka soo iibsadaa laakiin shay kale ilaa 27 Agost ilaa maanta September ay 10 tahay maanta baan soo adeegtay taas marka waqtigii waa ku balangareynaysaa dhaqaalihi laftirkiisina waa balangareynaysaa marka waxaa fiican guud ahaan intaan kabsartaba u galinin adeegaaga inaad wiigii hal mar aad soo gadatid inta subax walba adeeg dooni lahayd waqtigaas wax kale kaga faa'iideysid dugsi quraan hadda doonto ku galo de quraanka u baro ama waxbarasho ku aad ama waxa way hadda hooyo tahay de gurigaagii hagaajintiisa ku mashquul hal mar fridge-kaaga soo camiro dadka Soomaaliya joogo kale waxa laga yaabaa in guriyaha badankood uu fridge boolin waayo meesha waa meel iska kulayla marka waa laga yaabaa inay taas ku khasbayso de in subax walba adeeg la raadiyo ama de systemkan fridge-yada wax lagu aruurinayo oo qurbaha loogu yimid Soomaaliya kama bajiraba hilibkii fresh-aas wixii iska helaysa iska soo qabsanaysa meel kasto guriga ku dhawaaba adeegi laga helayaa laakiin halkan markii laga soo tago Soomaaliya jawigii iyo dhaqankii iyo wixiiba waa isbedelayaan marka aniga waxa ila qurux badan ba in weekgaas adeeg la soo adeeganayaa baan ku haystaa anigu suuqa aniga waa iga fog yahay soo saasan weekgii aan u aadaa hal mar marka maanta waxyaabaha aan ooli karinin oo weekgaas aan ku ooli karin baan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo
kamsartu waxay ka mid tahay waxyaabaha aan wiig kuu ooli karinin. soo ahaan 3 beri markay fridge-ka ku jirto way qormaysaa, isbedelaysaa. waxyaabahan ooli karin oo aan arkay waxaa ka mid ah qariha hadduu 2 beri talaagada ku jiro aan fridge-ka ku jiro wuu isbedelayaa. soo waxyaabahaas oo dhan waa in xal loo helaa saysan wixii u qurminin. waxaa laga yaabaa inaad waxaanoo kabsaraan soo iibiyo 2 beri kuma isticmaali karo, talaagada haddaan geliyo aan fridge-ka geliyo 2 beri ka bacdi waxa weeyaan waa lama isticmaali karo, waan soo daadinaya. soo lacag baa khasaaraysa ya dhaqaalaha laftirkiisa waa in laga fikiro soo ma asxaabay. marka sida aan u samaysto oo kamsartaas ay wiiggaas adeegaagu kuu yaalo ay ayana ula oolayso oo aysan isaga kaa bedelayn, oo xitaa mar walba intaad tumi lahayd oo kamsar iyo toon daba taagnaan lahayd oo tumi lahayd xitaa kaaga hawl fududaynaysa tumidii iyo waxaasoo dhan oo ayada diyaarsan baad fridge-kaaga kala soo baxaysaa, horey baad cuntada uga darsanaysaa, iskamana kaa bedelayso. taasaan raba inaan idinkaga faa-iideeyo walaalahayga qaaliga sidaan u samaysto ila daawada. hadda waa soo dhaqay, dabadii waa kasoo jaray, maasha allah tabaaraka allah. toontiina waatana waa inoo fiiqan tahay ayadana. soo toontu isma bedelaysa, laakiin marba haddaan kabsartii samaynayo dee toontiina waan ku dhex diyaarinayaaba, saasaa ii fudud soo maaha. marka tan baan makiinada oo cabitaanka lagu shiido ku shubaynaa. danna waxaan ku daraynaa toontii ayaan ku darnay. kabacdi waxaan ku daraynaa wax yar oo biyo ah, baan ku daraynaa. intaasaan horta marka hore isku soo shiidaynaa. cabay waa soo shiidnay, waa soo shiiday, waa kana saana kusoo baxday. okay, la socda. waxaan rabaa inaan ku shubto bahalkaana, rabaa inaan ku shubto hadhowna saa u daboosho. okay, maxaa inoogu xiga? waa ujeedaan walaalahayga qaaliga. saa markaa usoo shiidatid waxaa sameynaysaa waxyaabaha inay isbedesho ka ilaalinaya maxaa waaye oo rabna hadda inaan ku darno waa saliid baan ku daraynaa. bes fridge-kaan gashanaynaa, waa daboolaynaa. wiiggaas dhan way ku haynaysaa. hadba waad soo qaadanaysaa, qaadadaadaad saa uga darsanaysaa, cuntadaada ku darsanaysaa iyadoo ku diyaar ah. saliidda haddaad doontid hawl fududays marka horeaba ku shiidi kadhaaba, marka hore xitaa waa ku shiidi kadhaa saliidda, dhib ma lahan. ama marka dambeba saa u dhex gasho. 2 qaado oo saliidaan ku daraynaa, soo waa dhex gelinaynaa. bes sidaasaan ku daboolaynaa. waa ujeedaan walaalahayga qaaliga. saliidda waxaan ku xasuustaa soomaaliya markaan joogi jirnay, waxaan xasuustaa waa la gadan jiray shiishiida ama tamaandho miyaa la dhahaa talo afka, tamaandho miyaa loo yaqaanaa ma garanaya. anu shiishiid un baan u aqaanaa, shiishiida gudaheena cuntada lagu daro, ama mudish, mudishna waa la dhahaa, ama mudishta hadba sidaa u taqaanid. markii waxaan xasuustaa iyadoo la iibsado daasada, iyadoo lasoo iibsado. marka daasadii way weyn tahay, hal mar dee ma isticmaali kadhid. marka maxaa la sameyn jiray, markii aa fudhid saliid baa dusha looga dari jiray. bes meel baa dhiganaysaa, maba kaa qurmaysaba. hadba waad soo qaadanaysaa, saliid duxda hadda ka yaraata saliid baad ku dhibcinaysaa. marka ismay bedeli jirin. soo wax kasta saliidda lagu darana waa saas oo kale, isma bedelaysa. soo hadda kamsarteeni waxa isbedelka ka ilaalinaya waa maxay? waa saliiddaas aan ku darnay. sirtu waa saliiddaas aan ku darnay. marka ama marka hore waa ku shiidi kadhaa saliidda, ama marka dambaad ku dari kartaa. waxaa kan la yiraahdo saasay sheekada ku dhan tahay. wiiga dhanba way ku ooleysaa walaalahayga qaaliga. waa ujeediin maasha allah sidaa quruxda badan ayay kusoo baxday.
inta kabsar fridge ku jidho hadba dhinac ka madmadoobaad aad jarjari lahayd waaba tan ayadoo sideeda kuuga cagaaran oo quruxda leh yaa ma fridge-kaaga intaa gashatid shida yari hadba la soo baxdo qaadada ka darsatid simple taasaba kugu filanba waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin anigu kale waa ka faa'iiday saasaan u samaystaa adinkuna inaad ka faa'iidi doontiin waxay si khaas u sii anfacaysaa gabdhaha maxaan ku iraahdaa wiigii hal mar soo adeegta sidaydoo kale gabdhaha halka mar wiigii soo adeegta way anfacaysaa haddii ilaahay yiraahdo qofkii dee subax walba isagu soo adeegta subaxiibuuba iska soo gadanayaa laakiin dadka wiigii soo adeegta fridge-kooda wiigii soo camirta dadkaas saa-id bay u anfacaysaa walaalahayga qaaliga intaas rabayna idinkaga faa'iideeyo waa mahadsantihiin andansaanaan u daboolanaynaa daboolkeedaan dhab ku siisanayna sidaas ayaan fridge-ka ku gelinayaa haddii ilaahay yiraahdo haddii jiraan waxyaabo kale oo idin dhiba inay sii oolaan haddii lasoo sheergarayn kadhin insha allah ana waan soo hagaajinayaa walaalahayga qaaliga waa idinkaasaya asxaabteyda qaaliga aad baa u mahadsantihiin sida wacanaa noola socotaan haddaan ugu cusub tahay please subscribe de haddaa horey noola joogtay waa ku mahadsan tahay la joogaaga waxaan idin rajeynayaa caafimaad bashbash iyo barwaaqo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu